martiqaada ay fidisay jaamacadda Camuud ayaa ahaa mid ka suurtageliyay inay maanta kulmaan mas'uuliyiinta jaamacadda Camuud arday iyo daneeyayaal aad u tiro badan oo diyaar u ah inay dhageystaan kulan aqooneed furan oo uu soo jeedinayay Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle isla markaana diiradda lagu saarayay mowduuc halku dhigiisu ahaa khayraadka la wada leeyahay iyo sida ugu habboon ee loo maareyn karo madashan oo ka qabsoontay hoolka jaamacadda Camuud ayaa ugu horeyn waxa ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Camuud Dr. Maxamed Muuse Jibriil waxaana uu ka sheekeeyay horumarka ka qabsoomay jaamacadda Camuud isagoo markaasi tilmaamay in Dr. Beyle iyo jaamacadda Camuud ay wadaagaan astaan isku mid ah taasina ay tahay mid maanta ku dhiirigelisay inay kulankan ku martiqaadaan baryaha dambe waxa soo baxay dad badan laba group soo baxay ayaa soo baxay dad ka shaqeynaya horumarka dalkooda iyo dadkooda oo ficil ku daraya oo aan hadal ka ahayn iyo afmishaari saaqiday oo dibadda iyo gudaha jooga oo YouTubers iyo qoliyaha social media oo doonaya inay bulshada inay ka hor yimaadaan dadka wax taraya oo ay bulshada dhan kale u dhigaan oo qaybkood ka reebaan horta labadaas loo kala baxay Dr. Beyle waxa ku amaanaya waa hogaamiyihii dugsiga Geeb anigu waxa ka shaqeyn jiray xeebaha 2006 2007 2008 2009 waxaan ahaa isku duwihii wasaaradda dibadejinta ee Somaliland ilaahay ballankii carruurta halkaa ku nool adaa u ooyay adiga carruur aan waxba baranayn oo bilaa mustaqbal ah iskuulka markuu u sameeyay isaga iyo gruubkii ku taageeray Dr. Beyle Geeb rays weyn oo bahda waxbarashada annaga nasaaraa ayuu naga qaaday khayr Allah siiyo ardaydii ka soo baxday dugsiga Geeb Dr. Beyle halkan way ka kala jabiyeen imikana way nala joogaan oo ardayday ku jiraan waxa way dadkoodiina waxbay ku celinayaan iyagu lafahoodana waxbay tarayaan taasi waa taa Dr. Beyle meeshuu ka shaqeeyay nin ka muuqdo weeye hadduu ka shaqeeyay African Development Bank iyo hadduu ummadda Soomaaliyeed wax tarayayba nin ka muuqdo oo dadkiisa wax ku soo celiyay weeye ragga qaar iyo dumarka qaar sidaas ay u dhaqmayaan jaamacadda Camuud waxay ka mid tahay meelaha lagu aflaxay ee dadaalaysa isku karakter baanu nahay markaa sababtaan ugu yeeranay taas weeye wixii intaas ka dambeeyay ayaa Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo hadalka qaatay ugu horeyn amniga nabadda iyo waxbarashada ay dadka reer Awdal iyo guud ahaan Soomaaliland haystaan uu ku tilmaamay mid guul ah runtii aniga sharaf weyn bay ii tahay inaan dalkii Soomaaliland ku soo noqdo meeshay doontaa ha martay duwa qoray un baa u dambeysay ninka odayga ah ya lama horana waa cawsilaal marka inaan halkan ku soo noqdo farxad weyn bay ii tahay inaan jaamacadan imaado oo aan lecture-kan ka jeediyo iyaduna sharaf aan la soo koobi karin bay ii tahay farxad aan la soo koobi karin waan idin mahad celinayaa now waxaan doonayaa jaamacadda waan ku soo wareegay shaqo aad iyo aad u luxdoon baa gashay shaqo badan baa gashay halkan waxaa ka muuqda jaamacadaha adduunka ee arki jiray bay jaamacaddani la factahay waanad ku ammaanan tihiin aniga lecture-kayga iyo xigmadayda iyo waxaan u taaganahay waxa weeye dadku hadday damcaan inay wax qabsadaan way qabsan karaan halkan baa example ku ah aan joogna maanta if you can think it you can do it madaxaaga hadday wax ku soo dhacaan if you can think it you can do it marka waxaan halkan ka wadaan waa ku ammaanan tihiin dadka reer Awdal iyo dadka reer Somaliland ba nabadda ay ku naaloonayaan nabadda halkan taala iyo waxbarashada halkan taala haddaad inuun aad ka qabtaan shaki halka taagan tihiin waa meel wanaagsan halka ka sii wada
وأنا نود الله. hoos ayuu u daadegay oo dulucda mawduuca maanta oo ku saabsanaa khayraadka la wada leeyahay iyo sida ugu habboon ee loo maamulo ayuu u daadegay Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. maamulka waxa la wada leeyahay maamulka waxa la wada leeyahay maxaa la wada leeyahay yaa wada leh baa markaa meesha ku jirta waana meesha horumar nation laga qiyaasi karo weey. now waxa la wada leeyahay waa wax dadka oo dhan ka dhaxeeya inagu haddaan nahay public sector side maxaa laynooga baahan yahay waxaa laynooga baahan yahay waxaa la yidhaahdo common good sidaasaa loo yaqaanaa ama common community ownership yaa loo yaqaanaa kanoo kalaa ka mid a waxaa weeye common good wax benefitkiisu cid walba gaari karo oo aanad adigu gacanta ku haysan karin wadooyinka ka mid a anybody gaari haystaa waa wadadaa u isticmaalayaa haddaan xataa gaari haysankii gaariga raacaya ayay faa'iido u tahay degdeg buu Hargeysa u gaarayaa ama meeshii kale uu doonu gaarayaa waa wax dadka loogu talagalay la wada leeyahay tacliinta ka mid a waxa ka mid a waxa la wada leeyahay biyaha yaa ka mid a dalka wada leh biyaha dalka wada leh waxa sidii loo maareyn lahaa ayaa adduunku isku haystaa iskuna dhaafay maqoladii ay inagu saarnay inay waa noo maamulo mayaga yeelanaya mise inagay mas'uul inaga yihiin oo ay wakiil inaga yihiin oo markaan doonno waxaan step aside wad noo maamuli kari weeyday now maxaa wax wada lahaasho keenay wax la wada yeesho ma nin walba wixiisa iska wato maxay dadku wax u wada leeyihiin waxay wada leeyihiin halka markaa wax ka samaysantay dawlad baa waxa la sameeyay komitiyada la sameeyay waa dawlad loo baahday waxa la wada leeyahay lagu maamulo ya markaa dawladdu waxay timaadaa markaan uu kaliday isku filaan waayo ninka ciladagii wuxuu yiri de arigayga hablahayga ku filan arsaaqadana Allah haya cuntada xoolahaygana macid baa roobka Ilaahay baa kuma uu fikirin wax kale imanayaan mar alla markaa la isku baahdo bay dawladda timid dawladda markay timid macnaheedu wuxuu noqday war waxaan wada leenahay cid noo maamusha aan samaysan way samaysteen dawlad bay sameeyeen dawladdii siday markaa u shaqeynaysaa horta waxa loo baahan yahay baa la isla garan dawada wada loo baahan yahay waxa loo baahan yahay biya loo baahan yahay tacliin baa loo baahan yahay amni baa loo baahan yahay number 1 issue way amni baa loo baahan yahay dadkana inaga kala ilaaliya cidayna wax wada lahayna inaga ilaaliya amni number 1 way amni waa number 1 sidaynu qaybsana taniki ina malaynimo keeni ki kale lacag bu keeni hadhow waa la monetize gareeyni wixii oo dhanba cashuur baa loo rogi cashuurtaas marka cid aan u baahanahay la soo qori ya marka habka dawladdu ku shaqeynaysa marka waxa weeye wax wal oo la qabanayo in la isla garto wadaan u baahanahay waa la isla garan iskuul baan u baahanahay waa la isla garan dabeetana waxa loo baahay oo dhan baa la koos gareyn kooski waa mise waa inta saynu yeela dadkeenu qaybinayna oo bal oranaya dadkeenu qaybinayna in walba intuu bixin karo marka sideen dadka u qaybinayna nimankiina cashuuraha yaqaana ability to pay principle baa jira qofkii bixin karaya sidee u kala bixin karayaan ya iyo benefit received principle waxa la yiraahdo oranaya sidee ugu yani benefitka ama wixii ka soo baxa meesha sidee u kala badsanayaan marka your attitude and your culture and your values and your conscience damiirkaaga wuxuu ku siinaya ayaa dadka ama hore u mariya ama dib u celiya all kinds of resources will not make a difference meelad wada way noqotaa meelad resource badan yeelataa badiya yeelataa waxaasoo dhani it doesn't matter it is people and their mind that makes the difference taasoo baan doonay in la wadaago wax walba aniga waxa iga important iga muhiimsan inaan halkeeda ila joogo intaasoo qof oo jaamacadan inta badan ka baxay qaarna ku jiraan waa resource ki nation ka mal jooga maanta ya the best resource of this nation baa la jooga waa dadka iyo waxay soo saaraan weeyaan hatta economics kana waa saaso eegada qolooyinkiina economiga barta production is the function of two things wa L and K so ma
Yeah, production function. The production function formula waxa weeye production P is the function of K and L. K waa maxay capital. L na waa labor. Wax kale oo dhan adaa sameynaya. Hatta badda dhexda hadii lagu dhigo adaa sameynaya. Piece of land hatta waan ada labada hadaa isla hesho capital and personal thinking. That's all you need. Wadana example saa jiro aad soo qaadan karnoon wax khayraad lahayn dad mooyaane. And that people made the difference. xoogaaga iyo maskaxdaada iyo waxgarashadaada adara waakhiraha la tagin ma aha intan oo kaliya balse intii uu socday kulan aqooneedkan ayaa Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle waxa halkaasi lagu weydiiyay su'aalo door ah oo la xidhiidha mowduuca iyo waayo aragnimadiisa waxaana mar wax laga weydiiyay waxa uu ka og yahay mashruuc uu maalgelinaya Banka Horumarinta Afrika oo la xidhiidhay wadada isku xidha Boorama iyo Djibouti uu ku jawaabay mashruuc ballaaran oo Horn of Africa Development and Regional Integration Program la yiraahdo ayaa jiray oo madaxda Horn of Africa ay ku heshiiyeen lacag meel specific ah taalo oo window 5 la yiraahdo oo dalalka wax wada leh meel laga finance gareeyo ayaana loo bariyaa rabnay intaaba laga finance gareeyo haddii doonaysa halka inaad lacagta ka hesho waa in adiga iyo wadan kale at least one more wadan ay ku heshiisaan wadadan markaa waxa ku heshiiyay Ethiopia Soomaaliya iyo Djibouti ayaa markaa ku heshiiyay wadooyin badan oo sidaas oo kala ayaa jira railway aan idin sheegay isaguna maskaxda waa ku jiray mashruuca ballaaran oo 15 bilyan loogu talagalay ayuu qayb ka ahaayeen marka wadooyinka dawladda Soomaaliland baa ayaa wada anigu sidaan filayo African Development Bank oo inta hore finance gareynaya waxaan ka warqabaa in 230 milyan ugu horeeyay la fadgareeyay dawladdu maanta Soomaaliland ka shaqeynayso عندي وضع سمين لهيد phase 1 كيدي phase 2 كيدي مركا لغا شقاي دونو تكاله هو هرجيس اود وين برخو ايادنا feasibility كيدي با دما اسكو دو de waa wixii dalka isku xidhay xaqan uma ka hadlay mar Soomaaliland dalka isku xidhaya wuxuu noqonayaa wax loo helo funding bay noqonaysaa marka dawladda kale la heshiiso waxaadana halkaas soo dhigto aad macna samayso wax fan gareeya runtii ma waaysid marka taasi halkaas ay maraysaa dawladda laakiin iyaga waroon aniga ma garanaysaa waan ka soo raagay dawladda Soomaaliland bana gacanta ku haysa waxaan filayaa inay dhawaan bilaabi doonaan kuwa iyo kuwa kale aan soo sheegayba Horn of Africa inay isku xidhanto Soomaalida ka faa'iideysa Soomaaliland ba ka faa'iideysa kuwa kale ka faa'iidaya inagu bay amshari baan trade people baan nahay mid kale waa dhinac walba waan joognaa dadka af Soomaaliya ku hadlanahay marka wax isku xidhka Soomaalida dad ku hadla ka faa'iideysanay baan anagu marka quwad baan saarnay inaan la saxiixnay Ethiopia Kenya iyo Djibouti ba si dadkaas u faa'iideystaan